السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا دياد بن الإسلامي إن شاء الله ما أنت وري 10 كنا هرت هالكم بينو بتشوي ودي بدن كريدت رول سندقنا إن شاء الله ما أنت هالكم بين 10 كود النادر هذا ما أنت واحد قلنا what is a general journal كو waxa lagu magacaabaa buugga original entry-ga ee marka ugu horeeya wax lagu diiwaan gelinayo from transaction occurred were written markuu transaction dhaca ama dhacdadii dhacdo ayaa lagu qorayaa oo lagu diiwaan gelinayaa hadaba buuggaas waa noocee buu sameeyay yahay formkiisu waa sidee muxuu kale leeyahay ba meesha isweydiin leh halka waxa weeyaan general journal entry includes general journalka waxa ku jira date buu leeyahay titles buu leeyahay date-kaas wuxuu ku saleysan yahay date-ka transaction ku dhacayo titles buu leeyahay debit iyo credit buu leeyahay sidoo kale marka qaar waxa la raaciyaa reference waxa la yiraahdo oo tixraaca oo halka ay waxaan ka dhacay sida arrinka walkii loo tixraaciyaa insha Allah waan arki doonaa tixraac wuxuu yeelan doonaa wax ku tusaya transaction ID baa la dhahday jeer wax ku tusaya dhacdada si dhab u dhacday in kale waa kana daba general journalkii bartan buu naga muuqdaa wuxuu leeyahay waa date wuxuu leeyahay explanation ama title explanation iyo title waa isku mid labadaba lagu qoraa reference ka sheegay waa kan debit and credit ka barta dhigaysa debit and credit kaasi hore ayaynu soo aragnay waa laba account mid kastaba chart of accounts ki lagu kala qorayaa hadii ay cash ku soo gashay waxaad ku qoraysaa debit ka halkan explanation ka ku cadeynaysaa cash halka ka soo baxday ama lacag barta ka soo baxday debit iyo credit keedana waxaad ku qoraysaa hadii ay ku soo gashay debit baad ku qoraysaa hadii ka baxdayna credit baad ku qoraysaa marka debit iyo credit ka rules ay lahaayeen ruleski hadii aad si fiican u qabateen waad ka baxaysan si fiican baan u diiwaan gelinaysaan dhacdada transaction dhacay oo dheedkana waa lagu horeysiyaa markasta tusaale ahaan hadii maanta wax iibino oo in iib sameeyno caadi lacag kala qaadanay arabna in iibino waxa leenahay dheedkii waxa soo dhacay barta ku qoraynaa explanation ka waxaan ku qoraynaa cash bayna soo gashay marka koobaad tabadna waxaan ku qoraynaa bartan debit ka wixii naga soo gashay arrinka sidoo waxa weeyaan waa revenue dakhli weeyaan dakhliina soo galay iyadana waxaan ku qoraynaa credit markastaba waxa la doonayaa in credit iyo debit kaagu ay isleegaadaan double entry baa la dhahdaa bartan waad soo gelisay halkaan waad gelinaysaa shay kale waad ku magacaabaysaa sababta aad bartan iyo bartan waxa ku xukumaya inaad halkan gelisay inaad halkan gelisay waxa weeye cash ku halkay kor dhawaad suudiinaysaa halkan debit wal revenue wal ku isagu ka kordhaya wuxuu ka kordhaya credit ka hadii laakiin ay cash ka baxday waxaad ku qoraysaa credit ka hadii ay soo gashayna debit ka xeerarkii waad qaybaysaan sidaas aad u haysanaysaan insha Allah general journal kan waa halka ugu horeysa ee aynu ku bilaabayno markaan business-keena diiwaan gelin insha Allah hadii la hado dhacdada koobaad ee dhacdalka lagu qorayo weey sidoo kale 10ka waxa inoogu xiga wax la dhahdo T account waa maxay T account waa ka sidan u samaysan waxa uu leeyahay debit iyo credit balance debit iyo credit buu leeyahay T account ka meel kale lagama keenin hadaan general journal-keena ku yara noqono T account waa intaas oo la soo jaray balag T account baa u dhaxaysa liidna u dhaxaya midna hoos mareysay marka waa T account debit iyo credit balance leh marka account kasta la eegayo wixii imika tusaalaan cash-kii ku soo galay oo dhan ayaad bartan ku soo qortay waa diiwaan gelisay waad ka soo ururinaysaa hadana T account baad sii marinaysaa waa la posting baa la dhahdaa waa la post gareynayaa T account baad sii marinaysaa cash-kii baad soo qaadatay waxaad leedahay cash-ku hadii ay kordhayso increases asset received hadii asset hesho bartan ay ka kordhaa cash-ku asset-kaaga kamid tahay halkan ay kordhaysaa hadii ay cash ka baxday decreases halkan bay ka yaraanaysaa waa paid waa markaad bixiso tan waa received markaad hesho marka T account-ku waa general journal-ka qaybtiisa debit iyo credit ka ku taallay oo la soo qaaday account kastana waa lagu miisaamay account-ka cash-ka halkee uu kamid yahay asset-ka deynta ku maqan maxay kamid tahay asset-kaaga expenses-ka halkee uu ka kordhaa isaguna account-kiisa wuxuu ka kordhayaa waa debit hadii aad expenses aad samaysay aad bixisay hadii expenses aad bixisay ma wuxuu ka yaraanayaa credit ka hadii expenses ku ay kugu kordheen oo aad kharash gashay waxaad ka badinaysaa ama uu kaga kordhayaa expenses ka kharashaadka uu ka kordhayaa waa debit ka halkan waxa kaaga muuqda reference kaasi accounting coach ayaa la raahdaa waa web page accounting coach la raahdo wuxuu aad jaray qoladaas ka faaloodaan accounting iyo macluumaadka ku saabsan
waxaan doonayaa ardayda accountiga aad u jecel wixii intaa dhaafsiisan inay halkaa ka faa'iidaystaan insha Allah, halkaana ka akhristaan sawirro kooban oo si fiican u habaysan iyo casharro si fiican u habaysan ayaa ku jira. waa website aad booqanayso insha Allah, kaasaad wax badan ka helaysaa insha Allah. inaguna maalmaha dambe waxaan diiwaangelinaa dhacdooyinkeenii. halkan bayn ka bilaabanaa identifying events and recording transactions. halkan waxaad ku aragtaan waxyaabo la kala iibsaday oo tusaale ahaan kaasoo kale November 3 waxa la soo iibiyey land dhul baa la iibiyey 250 kuna, cashkiina caadi baa loo bixiyey. sidii baa loo diiwaangelinayaa 17kii alaab baa la iibiyey on account baa lagu iibiyey ama deyn baa lagu iibiyey. sidii baa loo diiwaangelinayaa general journal ka ku bilaabi doonaa intaas raacayna 10 maanta soo socda. waxaad doonayaa inaad si fiican aad ugu diyaar garowdaan, si fiican aad u soo akhridaan debit iyo credit balance iyo sida aad u inaad si fiican u fahantiin baa la doonayaa. waxaa kaloo la doonayaa general journal ka qaybaha ka kooban yahay inaad si fiican u samaysaan. marka soo wax diiwaangelinaysan aad form ka yar samaysato ka kooban date, explanation or title, reference kaas kaga tagi kartaa debit and credit. reference kaas business ku kala duwanaanayaan hadhow. reference ku waxyaabo badan buu yeelanayaa dad kan wax kusoo deposit garayso. transaction ID ga deposit kaas aad qoraysaa. haddii aad qof wax u dirtay lacag u dirtay saad oo kale tixraaca ayaad qoraysaa saada. هذا جرسات ولا سماء ترسم ويان. marka insha Allah waxyaabaha la xiriira oo dhan transaction ID bay leeyihiin, bartaas aad ku qoraysaa si fudud baa loo helay hadhow insha Allah. markaas saas inuu diiwaangelinaa wax kasta ku diyaar garooba inaad casharka soo socda aad si fiican ula jaan qaataan. xisaabtiiba bilaabmaysa, businesskii baa la bilaabayaa shaqadiisii, wax buu iibinaya businesskaasi, waxna way soo galayaan, wax way ka baxayaan. business iyo hawlihii baa la gelayaa. lama doonayo adigoo kala daadsan ama wax ka yar maqan yihiin intii hore inaad ku gasho xisaabta sidaa. marka insha Allah khayr baan idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.